aanu siinayno dowladda federaalka oo aanu ka codsanayno in ay dib u eegto go-aankaas dhexdhexaadnimada ah ee dowladdu ay qaadatay oo markii anagu anagoo dadka u hadlimay puntland baan uhaynaya maamulkeeda iyo dowladeeda noola muuqday inuusan ahayn mid marka isleeyahay xaaladda markaa taagan ku habboon marka talo aanu siinayno dowladda inay dib u eegto go-aankeeda xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo sacuudiga marka anagu ra'yigay un baanu caabiraynay iyo waxa ay yahay mowqifka dowladda puntland inta kusaabsan oo aanu talo ku siinayno dowladda federaalka. waa gartay madaxweyne, maxaa laakiin kusoo beegay xilligan inaad arrintan ka hadashaan iyadoo muddo bilooyina laga joogo khilaafka iyo xiisada udhaxaysa dalalka carabta? anagu mar walba waxaanu siinaynay talada oo aanu lahayn halooga dambeeya dowladda federaalka ah mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo fikirkaygu ku yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda marka de dabcan dowladda haday go-aan qaadatay in dowladda marka lagula taliyo loo sheego fikirkaygu wuxuu yahay ayada marka hore ra'yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra'yiga caamka ah dadka uu yahay in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican aan lala ordin marka anagu hadi muddo hadda 2 bilood xoogaa kasoo wareegtay arrintaasna kulle dowladda waanu kala tashanay waana u sheegnay wixii fikirkayga iyo hawsha iyada waa gartay. laakiin marka erayadaada dib loo raaco mudane waxaa muuqata inaad leedahay dowladdu taladii way naga yeeli weysay sidaas daraaddeed ayaana hadda go-aankan aan loo qaadanay. haddana waxaa noo muuqda arrintan aysan ahayn arrin hadda dhawaan xalismaysa oo de haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fududaanayso de dabcan muhiimadba ma ahaateen lakin waxaa noo muuqda hawshan inay sii cuslaanayso loona baahan yahay iyaga in arrintaa wax laga bedelo marka la eego culeysyada ku saabsan arrintan la xiriira dhibta ka taagan galabka marka taa ayaa keenta waqtiga hayad hadda inaan arrintan aan wax ka dhig ah. waayahay, haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, waxaa jira warar sheegaya in culeysyo siyaasadeed aad kala kulanteen dalalka carabta gaar ahaan dalka imaaraadka, arrintaas maxaa ka jira? adeer wax ka jira ma jiraan. annagu waxa weeye haddaan su-aasha laftigeeda waxaa rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday la support gareeyey qadar weye micnaheedu marka sabab hadda kaliskastana ma garan karo waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya puntlandna dee barnaamijyo gaar oo ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyagii maanta bishii carafada intaas milyan xoolaha u doofaysa intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya anaga puntland ahaan de waxaas anaga qadar naga soo gaara ma jirto de in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo laakiin waayahay, laakiin marka la eego soomaaliya oo keliya ma aha dalka dhexdhexaadnimada qaatay, dalal badan ayaa qaatay. maxaa ka khaldan ayay kula tahay in soomaaliya mawqifkaas dhexdhexaadnimada ah ay ka qaadato xiisada taagan? annaga cid kale wadan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed baa muhiim u ah moogtahay dowlad hebel baa qaadatay annaguna aan qaadano maha jawaabta saxda ahi mar walba waxa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leenahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya marka cid kale go-aankeeda annaga wax nagama kuseeyaan waxa naga kuseeyaan waxa weeye dowladda soomaaliyeed iyo go-aankeeda iyo mararka qaarkood go-aanimada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo in waxaa fiican de dabcan in aada looga fakero oo laga wada tashado oo markaasta go-aanka saxa la qaato. dowladda puntland si mugle ayay dowladda federaalka soomaaliya waana la shaqeysa wada shaqeyn fiican baana ka dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka puntlandna dee waxay ka tirsantahay dowladda federaalka laakiin marka qaarkood annaga waxa iyaga andiibanada waxa weye dadka puntland xaq u leeyahay. waaya, laakiin wax mugdi ah oo idin dhexeeya idinka iyo dowladda dhexe ma jira oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaarkii ay hadal hayeen? ma jirto inaba la kaatee wax ka dhexeeya dowladda puntland waxaan taageero ahayn u haysa dowladda federaalka ma jirto waana la shaqeynaysaa waxayna jeceshahay inay horumarto inay xaalad kasta adag ay ka gudubto in dalkan hor loo qaado masiirkiisa la horumariyo hawlaha yaallo oo tirada badan oo mustaqbalka soomaaliyana laga wada shaqeeyo si dhow looga wada shaqeeyo
waxaan wanaag iyo saaxiibtinimo ahayn ka dhexeeya ma jira annaga iyo madaxda dowladda federaalka waxaan wanaag iyo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland ma jira dowladda Puntlandna si mugla ay u taageersan dowladda federaalka su'aal kale haddii aan ku weydiiyo marar badan laftirkaaga waxaad ka dhawaajisaa in Puntland ay tahay hooyadii federaalka dastuurka Soomaaliya marka la eego wuxuu qeexayaa in dowladda dhexe looga dambeeyo ama iyadoo ay mas'uuliyadeeda tahay siyaasadda arrimaha dibadda marka haddii dhinacaas wax laga eego soo uma muuqataan in dastuurkii aad ka soo horjeedaan oo xilligan aad abuureysaan khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn maya walaal wixii dowladda federaalka xaqeeda u leedahay dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaqeeda inaanu talo ku yeelano laakiin go-aankaan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay rowl dowladdu Soomaalida ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meesha ma jiro awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda haysato oo la wareegtay ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siino intaas way xaqa ku saabsan tahay waayahay tan iyo marka mowqifkan aad qaadateen wax xiriira oo idin dhex maray maamul ahaan iyo dowladda dhexe ma jira maya anuga beelaha xaalay ilaa masaaka safar baan soo aaday boos garowan ka yimid hadda boosaan joogaa marka laakiin dabcan waa laga maarmaan in aan wada hadallo oo wax iska dhada arrinta iyada insha Allah Soomaaliya dowlad cusub ayaa hadda ka jirta sida ay wax ku wado say adigu kula muuqataa dowladdu anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister loo shaqo cabeeyaan dowladda Soomaaliya waa cusub tahay hadda waqti wax laga sheego oo la yiraahdo waxa jira ma jiro dadka waqti in la siiyo baahan dowladdu shaqooyinka ay haysan lagu taageero waaya marka soo noqon doona hadda xiriirkeedii kala dhaxeeya dowladda haddii dowladda ay mowqifkan taagnaata ah inay dhexdhexaad ka tahay arrinta Soomaha micnaheeda inaad kala furanaysaan oo dowladda wax wada shaqeyna aanay dhex mari doonin maya waxa weeye dowladdu wax kastoo laga wada shaqeynayo waxa laga shaqeynayaa waa mustaqbalka Soomaaliya oo wanaagga Soomaaliya marka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa taan celeeda maaha markii fikir lagu kala duwanaado in la dagaalamo maaha waxa weeye dhaqan xamaanaya waa taas siyaasad maaha dhaqan dowladnimada maaha waxa weeye dowladdu waa ra'yiga waa la siin karaa wax waa loo sheegi karaa fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa marka maaha micnaheedu hal aragti oo yar oo lagu kala duwan yahay micnaheedu in la kala xirin furto la dagaalamay dowladnimada saa kuma shaqeyso dowladnimada saa ku jiri mayso saa loo dhaqmo